عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وين إذن سلاني جبي أهم بأصحاب تمرع ميديا ملكستود كجوكتان دونيدان كلانتي وناكسن دمانتين با kuna soo dhawaada barnaamijka qalinqaad qaybtiisa koowaad oon ku eegi doono qaaradda Afrika. Waxaan ahay soo saaraha isbuucan ee barnaamijka Qadar Faarax Bootaan qayb ayuu igala yahay. deeqa baxsan online marketing wali adigoo internetka iska dhex mushaaxaya ma ku aragtay shay la soo xayeysiiyo oo aad ka heshay mara garan weyday halkii aad ka doonan lahayd laakiin hadda waa laga baxay taa online ayaad wax kasta ku dalban kartaa isla gurigaaga deeqa baxsan online marketing waa suuq ganacsi oo ku soo beeray ganacsiyada online-ka wax loogu iibiyo xaruntiisu waa magaalada Hargeysa dhammaan gobolada iyo deegaamada Jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhan ayaad ka heli doontaa si fudud isla xilliga aad dalbato ayaa lagu soo diri doonaa waa ammaano waana degdegsiimo waxaanaad ku heli kartaa si kalsooni buuxda ay ku jirto si muhiimadda ugu weyni waa sidii adigu aad u dalban lahayd oo kaliya ha ka warwarin in lagu keeno halkaaga ayaa lagugu keenaya wixii inta faahfaahsan waxaad kala xiriiri doontaa ciwaanada hoos ku qoran iyo sidoo oo kale barta Facebooka ee deeqa baxsan online marketing. Afrika waa qaaradda labaad ee ugu weyn qaaradaha adduunka kadib qaaradda Aasiya dhanka baaxadda iyo dhanka dadkaba. Baaxadda Afrika waxay la eg tahay 30 milyan kiiloomitir oo iskuweer ah. Tiradaas waxaa ku jira dhammaan jasiiradaha lagu xisaabo Afrika baaxaddeeda waxay dabooshaa 20.3% baaxadda dhulka oo dhan sida lagu xusay tirakoob caalami ah oo la sameeyay sanadii 2013 waxaa ku nool qaaradda Afrika dad tiradoodu ay dhan tahay 1.1 bilyan oo ah tiro u dhiganta 7 qaybood markii loo qaybsho qayb ka mid ah dadka ku nool dunida maanta. qaaradda Afrika waxaa ku hareeraysan biyo badda Mediterranean-ka waxay ka xigtaa waqooyi sidoo kale gacanka Suez iyo badda Cas waxay ka xigaan waqooyi bari. badweynta Hindiya ayaa kaga taal koonfur bari iyo badweynta Atlantika oo ka xigta galbeed. intaas waxaa dheer waddanka jasiiradda Madagascar iyo jasiirado kale ayaa soo hoosgala qaaradda. sida rasmiga ah waxaa qaaradda Afrika degan 54 waddan oo la aqoonsan yahay 9 deegaan iyo 2 waddan oo weli aan la aqoonsan. xagga bulshada qaaradda Afrika waxaa ku dhaqan dadka ugu da'da yar caalamka marka tirada guud laga hadlayo 50% dadka Afrikaanka ahi celcelis da'doodu waa 19 sano jiro. juquraafi ahaan waddanka Algeria ayaa ugu weyn dhanka dhulka iyo baaxadda halka Nigeria dad ahaan ay ugu tiro badan tahay. waxaana guud ahaan caalamka la isku raacay in bartamaha iyo bariga Afrika yihiin meesha aadamuhu ka soo beermay markii ugu horreysay. waxaa deegaanadan laga helay lafo aad u da'weyn oo muujinaya horraantii dadka. tusaale ahaan waddanka Itoobiya waxaa laga helay lafaha ugu da'da weyn inta la og yahay kuwaasi oo jira 200,000 oo sano. guud ahaan qaaradda Afrika waxaa dhex mara dhulbaraha waxayna leedahay noocyo badan oo cimilo kala gedisan ah waana qaaradda keliya ee laga helo astaamaha cimilada waqooyi ilaa koonfur dhulka. qaaradda Afrika waxaa loo qaybiyaa 5 gobol kuwaasi oo ku kala salaysan juquraafi iyo deegaan ahaanba waxayna kala yihiin bariga Afrika bartamaha Afrika waqooyiga Afrika galbeedka Afrika iyo koonfurta Afrika. bartamaha Afrika waa deegaan xuduun ah bartamaha qaaradda Afrika taasi oo ka kooban tiro waddan ah oo kala ah Burundi Jamhuuriyadda Bartamaha Afrika ee Chad Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo iyo Rwanda. bariga Afrika waa gobolka dhaca bariga qaaradda Afrika taasi oo ay aad ugu kala duwan yihiin deegaan ahaan iyo juquraafi ahaan iyo waliba siyaasad ahaanba sida ku xusan qawaaniinta gobolada ee ay dejisay Jamciyadda Qaramada Midoobay. deegaanka bariga Afrika waxay ka kooban tahay ilaa iyo 20 waddan kuwaasi oo kala ah Tansaaniya Kenya Uganda Rwanda Burundi koonfurta Suudaan. wadamadan oo dhaca bartamaha iyo bariga Afrika waxa ay dhammaan xubin ka yihiin ururka bulshada bariga Afrika ee East Africa Community ama EAC. Soomaaliya Djibouti Eritrea iyo Etoobiyana dhowrkan waddan waxaa loo yaqaanaa geeska Afrika Corombos Mauritius iyo Seychelles kuwanina waa jasiirado ku dhex yaala badweynta Hindiya
Croinon iyo Moitana waa jasiirado yaryar oo ay gacanta ku hayso waddanka Faransiiska, Mozambique, Madagascar. kuwaasina waa qaar marar badan lagu xisaabiyo waddanka Koonfurta Afrika in ay ka mid yihiin, balse waxaa la sheegay inay bariga Afrika ka mid yihiin. Malawi, Zambia, Zimbabwe, kuwanina waxaa la sheegay iyaguna inay bariga Afrika ka tirsan yihiin. iyadana Rwanda iyo Burundi marmarka qaarkood waxaa lagu daraa wadamada ku yaala bartamaha Afrika. Koonfur Afrika waa gobolka ugu xiga dhinaca koonfurta qaaradda Afrika, taasi oo ay aad ugu kala duwan yihiin deegaan ahaan iyo juquraafi ahaan iyo siyaasad ahaanba dhammaan gobolada kale ee qaaradda Afrika, sida ku xusan qawaaniinta gobolada ee ay dejisay Jimciyadda Qaramada Midoobay. Deegaanka Koonfurta Afrika waxaa ka kooban tahay ilaa iyo 11 wadan, kuwaasi oo kala ah Angola, Botswana, Liberia, Malawi, Mozambique, Namibia, Koonfur Afrika, Switzerland, Tanzania, Zambia iyo Zimbabwe. Galbeedka Afrika waa deegaan ballaaran oo dhaca galbeedka qaaradda Afrika, taasi oo leh ilaa iyo 18 wadan, kuwaasi oo kala ah Benin, Burkina Faso, the Island of Cambodian, Gambia, Ghana, Guinea-Bissau, Ivory Coast, Liberia, Mali, Mauritania, Nigeria, the Island of Seychelles Helena, Senegal, Sierra Leone, Sao Tome, Benin iyo sidoo kale Togo. Waqooyiga Afrika waa deegaanka ugu xiga waqooyiga dhammaan gobolada qaaradda Afrika, taasi oo ka kooban ilaa iyo 7 wadan iyo deegaano sida Algeria, Masar, Liibiya, Morocco, Suudaan, Tunisia iyo Saxaraha Galbeed. intaasi waxa dheer wadanada Algeria, Morocco, Tunisia, Liibiya, waxaana guud ahaan loo yaqaanaa gobolada Maghreb. Waqooyiga Afrika ayaa caan ku ah buuraha dhaadheer ee Atlas, kuwaas oo ka soo bilaabma waddanka Morocco oo soo dhexmara waqooyiga Algeria iyo Tunisia, waxayna qayb weyn ka tahay silsilad buuro ah oo dhex qaada meelo badan oo deegaanka waqooyiga Afrika ah. haddii aan gobolada kale ku soo aragnay dad madow si ka duwan dhammaan qaaradda Afrika goboladeeda kale, deegaanka waqooyiga Afrika waxa ku dhaqan bulsho ballaaran oo asal ahaan ka soo jeeda Carabta. xagga luqadaha, inkasta oo luqadaha dunida lagu xisaabiyo tirada u dhaxaysa 7,000 ilaa iyo 5,000, haddana qaaradda Afrika ayaa lagu tiriyaa inay tahay qaaradda adduunka luqadaha ugu badan lagaga hadlo. inkastoo aan xogtan aan soo xiganna tiro luqada aan meel ku qorin oo Afrika lagaga hadlo, haddana waxa ku xusan oo kaliya in luqadaha ugu badan ee lagu hadlo Afrika lagaga hadlo, walow aan tiro luqada lagu qorin xogtan.